haddaan heed nalo abtirinayo oon dadka muslimiinta oo meeshaan joogta aan ka mid ahayn beeshar shabeelle haddaan nahay naloo caddeey waan iskiiga tegaynaa meeshaan rag ku labisnaa dareeska ciidamada dowladda ayaa xalay ku dilay kaam lagu magacaabo qaboobay oo ku yaala magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana la sheegay in dilka ka hor ay kufsi u geysteen haweeneydan lagu magacaabo Arliyo Nuur Maxamed Warfaa haddiinan ahayn sida ugu dhaqsada badan ana laaga soo gaaro oo dhibkaana loogu qabtay si cadaan ah lagu soo bixiyo waa dhamaanay wax loo dhaqan male gurigaana loogu soo galay gabartaas xalay la watay oo ninkeedii qori lagu qabtay oo iyadana banaanka la gato la kufsaday haddii soo baxnayna waa naloo dili dunida waxay uga tagtay 2 wiil iyo 5 gabdhood waxayna sababsatay gacanta rag aan raadkooda lahayn balse la sheegay inay ku labisnaayeen dareeska ciidamada waxaana ehelada marxumadan geeriyootay ay sheegeen in dhibaatadan ay muddo soo jiitameysay horteedna dhacaya kufsi badan laga geysay kaamka waxaan halkan ka cadeynayaa tacadiyada nagu haysto haddii aan nahay dalka uu tabarta daran reer Hiiraan wax daryeer aan ku haysanin nala faquuqay nalagu fiirsanayo tuutaan ugu gumeysanayo oo dowladda xaqana yeelayso waxa nadiyay nadibaayo waa dawladda shacabka maaha tuutaan lagu dilaa tuutaan lagu dhaca tacadigaas waxaan ka qabaa gobolka Hiiraan iyo dawladda kulal Hiirshabelle sida xalay meeshaan say wax u dhaceen niman tuuta qabo ee tuuga oo shaatiga dawladda wato ayaa noo soo galay waxay noo sameeyeen kufsi in naagana la baxaan waxay noo sameeyeen haddii lagu kacay dil loogu daraan oo naagaha ay dilaan oo ragga ay xabad ku fajiyaan oo waxay rabaan naga sameystaan waxay ugu qabsatay ama ay nagu haysato waa gobolka Hiiraan waa dawladda Hiirshabelle ee gobolka Hiiraan gafkaas wax siiyay nooyiga wax lagu dilay waa madaxooda wax lagu dilay hoostooda waxa wixii gaaray ugu leeyahay haddii ay jirto sharci haddii ay jirto kala dambeyn haddii ay jirto islaamnimo waxaan nahay gabar Soomaaliyeed waxaan nahay haddana gabar oo reer Shabeelle wiilashayna ama haweenkayna dhiba haasta wax noo danay ma laha dawladda Hiirshabelle oo hadda isku wadeynay haysato wadanka wax ay noo qabato iyo wax ay noogu maqan tahay midna ma laha anaga wiilashayna waa la gumaada naagaha laga wadana markay alaab qaataan ay wax iska celi yiraahaan xabadana loogu soo gama qori ma haysano waxaan iskaga caawina male qaamankaana loogu yimaada waxaan rabnaa ninka guud la leeyahay dad wax qabanayo waxaan rabnaa inuu wiilashayna iyo gabdhahayna la laayna mar walba la kubsanaa waxaan rabnaa xaqayna inuu kor u taago oo wax noo qabto intaan odayaal waxay cadeynaysaa in 9 qof dhimashay dhaawacna hadda warna gaarsiistay dawladda ay noo qabato tuutaha kas adna soo golaan horta noo soo weerayo waxaan leenahay dadweynaha inay arrintaas wax naga qabto ayaan jecelnahay Bismillahir Rahmaanir Rahiim anoo liiraa Xuseen Daawud Maxamed dadweynaha waxaan ogeysiinaa kaam qababa leeyahay in aan deganahay gabar walaashay kaam qababa lagu dilay tuutaana nagu gumeystay 24 saac niman qoryo wata guryaha nagu soo weeraro gabar adeeran u hay la baxeen gabadhii qayla ka dhacday anoo markii xaafadda ka tagay qayla dhacday gabadhii walaashay ku orday gabadhii walaashay xabada ku dhufteen tuutahana dilay dibkaas dhan tuutaha nagu gumeystaa 24 saac tuutaha nagu gumeystaa mar ma ahan laba ma ahan naagaha inoo guryaha inoo jiifo inta la qabsada la wadana banaanka loo la baxa haddaad soo baxdeen xabada lagu dhufana haddaan shaqo ka imaano jidkaan loo istaaga qoryaal loo qabana mobilada laga qaadana lacagta ilaa hadda tuurana la leeyahay intaasana dadweynaha ogeysiinayna tuuga ay ku soo muujida gurigooda ugu tagtay oo ciidanka militariga ah oo dharka tuutaysan wato oo hubeysan guryaha xal nagu soo weerar gabar naga watay islaanta waayeel ah oo Arliyo Nuur la yiraahdo oo maarta 7 caruur xoogeeda ku kursanaysan ay ku dileen ayaa muujal alxamdulillah u sheegayna maarta dawladda Hiirshabelle wax walba dhibaato walba nagu dhacdana waxa noo keenaya waa ciidanka dawladda waa Hiirshabelle dhibaato walba ay nagu qabteen ilaa 9 maalmood 9 cisho ayay muujida ay nagu soo weerareen guryahayn tuutaha ay nagu dilaan qoriga ay nagu dilaan maarta alxamdulillah waxa sida muujida wax nagu soo waa dawladda haweenkayna ragula baxaa habeenkii in la isticmaalo loo isku daa hadii in ka daba gurmano xabadaas iyo dhibaato loo geysto moobeeladii la adeegsanay dhabaana laga qaato ku milyan soo shaqeysano rabaad ku keenana